السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa in halkan uga hambaliyeeyo munaasabada xurriyadda 61 guuradii ka soo wareegatay xornimadii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan isla istaagaynaa insha Allah munaasabadii xurriyadda xilligii ay soo bilaabatay halgankii dheer ee soo galay. Ummadda Soomaaliyeed waxay halgan dheer oo gobonimada u soo gashay sidii ay u qaadan lahayd xurriyaddeeda ayadoo soo gashay dagaalo fara badan ugu dambeyntiina heshay xorriyaddeedii. halganadii kala duwanaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay daafaha Soomaaliya way banaayeen. kuwii ugu caansanaa waxay ahaayeen halgankii ugu horreeyay oo bilaabay Imaam Axmed Gurey sanadku markuu waa 1527 halgankaas oo ilaa socday 1543. halgankaas asaga Imaam Axmed Gurey waxa uu ka gaaray guulo fara badan. waxaa la xasuustaa meelihii uu aad u xoreeyay inay ugu horreysay ama meelihii ugu caansanaa ahayd magaalada Baali. halgankii xiga wuxuu ahaa halgankii Daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan. halgankii Daraawiishta ayaa waxay kala kulmeen dirir xoog leh iska caabin fara badan kaga yimid isticmaalkii Ingiriiska ayaa halgankaas kaga hor yimid dagaal aad u xoog badan. halgankaas ayaa wuxuu bilowday ama dagaalkaas ayaa wuxuu bilowday 1898 ilaa wuxuu socday 1919. halgankaas ay Daraawiishta la galeen gumeystihii Ingiriiska ayaa waxa uu ahaa halgankii ugu adkaa markii loo fiiriyo halganada maxaa yeelay gumeystaha Ingiriiska waxa uu adeegsaday ummadii Soomaaliyeed ee xornimada u dagaalamaysay in uu ku qaato diyaarado iyo duqeymo culus. ugu dambeyn halgankii ayaa halkaas ku guuleystay. halgankii saddexaad ee la xasuusta waxa uu ahaa halgankii dhalinyaradii SYL. halgankaas dhalinyarada SYL 13 ay hogaaminayeen ayaa waxa uu bilowday sanadku markuu ahaa 1943 15 May ilaa wuxuu ku soo idlaaday 1960 oo ah markii aan xorriyadda qaadanay. halganadaas kala duwan waxay ahaayeen kuwii ugu caansanaa. waxaa jiray halgano fara badan oo culimada Soomaaliyeed ay sameeyeen. culimada Soomaaliyeed ay dhanka diinta ka ilaalinayaan gumeystii jiray. intaa markaas maanta 61 sano guuradii markuu halgankaas intaas halgan noo soo socdeen sanadka markuu ah 1960 26 June oo maanta kala ku beegnay 61 sano ka hor waxaa xorriyaddoodii helay kana qaatay xorriyaddoodii mustacmaradii Ingiriiska. gumeystihii Ingiriiska dhulkii Soomaaliyeed uu gumeysanayay ee loo yaqaanay British Somaliland ama waqooyi. mustacmarada Ingiriiska ayaa waxay habeenkii markay ahayd 26 June 1960 ay xorriyaddooda siiyeen walaalahanaga Soomaaliyeed habeenimo Axad ah. isla gumeystihii koonfur gumeysanayay ee loo yaqaanay Itaaliya la oran jiray Itaaliya Soomaaliya ayaa asal waxa uu xorriyaddoodii siiyay 1960 maalinimo Jimco ah 1 bisha July. isla maalinka 1 bisha July waxaa dhacay wixii loo yaqaanay midowga Jamhuuriyadda Koonfur iyo Waqooyi waxaana halkaas lagu yeegleelay Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dimuqraadiga ah. halgankaas dheer aynu u soo marnay Soomaaliya inay xornimada qaadato waxaa dhiig badan u daadiyay u dhintay u naafoobay dhibaato badan u soo maray ummadda Soomaaliyeed ee anaga aabayaashanadii awooyaashanadii aan ka soo farcanay ah. halganka asaga waxaa laga soo gaaray guulo taariikh ah. hadda maanta waxaan taaganahay u dabaaldegaynaa oo ugu hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya 61 sano guuradii ka soo wareegatay xorriyaddanadii. haddaba haddaan nahay jiilka maanta jooga ee fursadda u helay xorriyad ayna dhibaato u soo marin ayna u dhaawacmin haddaba maxaa la gudboon waxaana loo gudboon qof waliba ka shaqeeyo xorriyadda aan haysano sidii aan u xoojin lahayn inaynu ka shaqeyno walaalnimada inaynu ka shaqeyno isdhexgalka bulshada meel kastoo la joogo. walaalahanaga Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ee tabashada gaarka ah qaba iyagana waxaan halkan fariin u maranayaa waxay tahay walaalayaal waxa la isku kaahayo waxay tahay ama waxaynu isku hayno waxay tahay waa siyaasad ee shacabku isma hayaan. bulshada koonfur iyo waqooyi waa walaalo sidii calankii aad u keenteen ee xorriyadda 1 Luulyo aad una midoodeen koonfur baan wali midnimada u haysan doonaa insha Allah. dhibaatadii iyo wixii dhacayna waynu ka soo laaban doonaa insha Allah. hambaliyo 61 sano guuradii xorriyaddanadii. hambaliyo